Buuggan oo ah buuggay siniinta sheeka xariirada Magan iyo Miimi. Ciwaanka buugga waan jecelahay rasuulkayga sallallahu calayhi wasallam. Beri hore waxaa jiri jiray wiil yar oo caqli iyo fahmad badnaa, magaciisuna la odhan jiray Magan. Magan wuxuu lahaa bisad qurux badan oo aad u firfircoon. Dadka oo dhanna way yaqaaniin, maxaa yeelay Magan ayay mar walba la socon jirtay. Bisadda magaceeduna wuxuu ahaa Miimi. Magan galab kaste oo Sabti ah wuxuu soo salaami jiray awoowihiisa iyo ayeeyadiisa. Sidii caadada u ahayd, galab Sabti ah ayuu aaday gurigii awowgiis, wuxuuna kaxaystay baaskiilkiisii. Bisaddiisiina waxay fuushay iyada oo gashay kolayga baaskiilkiisa. Markii uu Magan gaadhay gurigii awowgiis, si deggan oo edeb leh ayuu u garaacay albaabkii, waxaana ka furay ayeeydiis. Ayeeydiis markii ay aragtay Magan, hab ayay siisay farxad iyo jacayl ay u qabto darteed. Bisaddiisii Miimina way xambaartay iyadoo korka u salaaxaysa oo qotoqotaynaysa. Magan iyo Miimi si fiican ayay ayeeyo gurigeeda ugu soo dhoweysay, waxayna fariisisay qolka fadhiga, cabitaan macaan oo qabowna way u keentay. Iyagoo sheekaysanaya oo qosqoslaya, waxa u yimi awowgiis. Magan intuu istaagay ayuu awowgiis salaamay, gacantana ka dhunkaday. Magan ayaa yidhi, Awoowe, maanta sheeko fiican oo macaan nooga sheekee. Anigu waan jecelahay awoowe sheekooyinka aad Sabti walba nooga sheekayso. Hadalkaas awoowe aad ayuu ugu farxay, wuxuuna yidhi, Maxaan idinka sheekeeyaa oo aad jeceshihiin maanta? Halkaas markii sheekadu marayso ayaa Miimi gacanta taagtay oo tiri, Awoowe, inooga sheekee siirada rasuulkeennii Nebi Maxamed. Sheekadiisa ayaan jecelahaye. Runtii anigu aad ayaan u jecelahay Nebigeena Maxamed. Dhammaan waa lagu wada farxay. Miimina si aad ah ayaa loogu sacabiyey. Awoowe ayaa yidhi, Wax fiican ayaad samayseen. Haddana waxaan idinka sheekaynayaa rasuulkeennii sharafta lahaa ee Maxamed, balse waxaan idinka rabaa inaad rasuulka ku salisaan mar walba oo aan magaca nebiga sheego. Haddase wax yar isuga, waxaan soo qaadanayaa buug. Miimi ayaa wejigeedu isbedelay oo laga dareemay inay xishoonayso. Saaxiibkeed Magan ayaa weydiiyey, Miimi, maxaa kugu dhacay? Waad walwalsan tahay. Maxaad ka cabsanaysaa? Miimi ayaa tiri, Maganow, dhegtaada ii soo dhaweey. Maganna dhegtiisii ayuu Miimi afkeeda u dhoweeyey si ay ugu sheegto sirta waxa ay ka walwalsan tahay ee ay ka cabsanayso. Miimi ayaa tiri, Saaxiibkay Maganow, anigu ma aqaano sida rasuulkeena loogu saliyo, ee sidee baan awoowe u maqashiin karaa aniga oo aan aqoonin? Fadlan ma ii sheegi kartaa sida aan ugu salinayo marka aan maqlo magaca rasuulkeena? Magan ayaa dhegta ugu sheegay Miimi oo ku yidhi, Saaxiib, ha ka cabsanin. Anigaa ku baraya sidaad ugu salinayso rasuulkeena. Mar kasta oo aad rasuulka magaciisa maqasho, waxaad dhahaysaa sallallahu calayhi wasallam. Aad iyo aad ayay u faraxday Miimi, wayna qosashay. Waxayna tiri, Haa, hadda waan fahmay
waana bartay. Aad ayaad ugu mahadsan tahay saaxiib sidaad ii caawisay. Awoowe ayaa soo laabtay isagoo gacanta ku sida buug. Wuuna soo fadhiistay wuxuuna hore ka bilaabay qisooyinkii nebigeenna sallallahu calayhi wasallam qaar ka mid ah. Miimi ayaa mar kale gacanta taagtay oo tiri, Awoowe, ma noo sheegi kartaa magaca rasuulkeena oo dhammaystiran? Awoowe ayaa ku jawaabay, haa Miimi, waxaad i weydiisay su'aal wanaagsan. Magaca rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam waa sidan soo socota ee si fiican u dhegaysta. Maxamed binu cabdillaahi binu cabdi mudallib binu haashim. Hooyada rasuulkeena magaceeduna waa Aamina bintu Wahaab. Rasuulka wuxuu ku dhashay magaalada Maka wuxuuna ku geeriyooday magaalada Madiina almunawwara. awoowe ayaa yidhi, dabayna kiciya aan casarka wada tukanay, kadibna waxaan idinka sheekayn doonaa xuquuqda uu rasuulkeenu sallallahu calayhi wasallam nagu leeyahay. awoowe iyo Magan waxay tukadeen salaadii casarka. Markii ay salaadii ka baxeen, awoowe sheekadii ayuu meesheedii ka sii waday. Wuxuuna yidhi, ilmahaygiyow, rasuulkeenu sallallahu calayhi wasallam waa kii aan isaga sababtiisa Rabbi ku baranay, wuxuuna nagu leeyahay xuquuq fara badan. Balse maanta waxaan idiin sheegayaa 5 ka mid ah xuquuqda rasuulkeena, waxayna kala yihiin: 1. In aan si dhab ah rasuulka u rumayno. 2. Inaan amarkiisa raacno oo aynaan khilaafin. 3. In aynaan magaciisa oo keli ah ugu yeedhin. 4. Inaan wax kasta oo dhan isaga ka jeclaano. 5. In aan mar walba oo aan magaciisa maqalno ku salino. Kuwaas aan soo sheegnay waa qaar ka mid ah xuquuqda uu rasuulkeenu sallallahu calayhi wasallam nagu leeyahay. Ee xafida oo ilaaliya Miimi iyo Maganow. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa sheekadeennii maanta ee kaalaya aan casariyeyne.